markaan ka bixiyo sawir yar oo kooban isla markaana aan ka tusaaleeyo dhanka Soomaalida waxa ka dhacday ragow kibirka waa lagu ku faakaa la ogaado markaan ku sifeeyo garan maayo waxaan u sheegayaa shacabka SSC iyo hoggaanka SSC waxa ay sayaan dagaalku muddada dhex taagnaa waa maamulka Muuse Biixi iyo kooxdiisu wada Muuse Biixi iyo kooxdiisuna ama SSC han noqdaan ama shacabka kale waan ka xumahay dad hadlay oo Faysal kamid yahay inkastoo Faysal hadalkiisa wax badan ka soo qaadin oo Muuse maanta u hiilinaya war Muuse yaa loo hiilin Muuse khasaarahan isaga geystay dhibkan isaga geystay kuwa Hargeysa joogana nafuma hayo kuwa Laascaanood joogana wuu tusay caalamka sida uu ka yeelayo waa macangag axmaqa waa gacan ku dhiigle waa in la xisaabtamo waxa aad qabowdaa naftu ay qushuucdaa marka aad quraankiyo qowlka iba barateed qalbigaaga galisa ubadkood qurxisood qowlka iba bartaad qiimaha adduunkiyo aakhirana ku ceeshta qaar kalena ku darso qowlka nabiga Allahumma salli ala Muhammad alashan xadiiskiyo fiqiga funuun kale ayaad faa'iideysaa madrasada macallim quraan online oo dhowr iyo 10 sano jisatay waxa wax ka dhiga macallimiin khibrad dheer u leh qaabka ugu fudud ee wax loo baro caruurta qurbaha ardaydu waxay casharada ku qaadan karaan qaab online waqti kasta iyo meel kasta oo ay caalamka ka joogaan macallim quraan online waxa lagu bartaa xifdinta quraanka kariimka farbarka ilmaha barashada xadiiska fiqiga iyo culumta kale ee islaamka wixii faafaahinayntaas dheer kala xiriir telefoonada shaashada ku xaran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونكسن داوديال كسر دوادا ورئيس جارها وانخدك تلفون ككلية لنا إنه مدن سليمان عيسى أحمد الله يقنا حقلته توسية أو كم إذا سياسيين تكسر جدا SSC مدن حقلته توسية كسر دو ورئيس جار كمر كهري نقول سلام يا الكعسة هذه بهذا SST فيها وهجاج أنا كهرنا بالمر كهري ما ندويتو حنوين إن دجال علوس وكذا عي مجال الأسعانات oo ciidamada SSC ay gacanta ku dhigeen ama ay qabsadeen meeshii la oran jiray gooja cadde oo in badan la hadal hayay isla markaana kamid ahayd meelaha ugu adag ama dhufaysida ugu adag ee ciidanka Soomaaliland hadda oo aan maartay waraysi ka qaadayo oo aan wada hadlayno xaaladdu waa sidee markaas wari saad sheegtay dagaal baa dhacay 25 August oo ahayd maalin Jimcaha dagaalkaasi maalinta muu bilaaban wuxuu soo socday muddo 8 bilood 8 bilood waqti ayaa ninka la yiraahdo Muuse Biixi Cabdi iyo maleeshiyaadka amar qaata ay magaalada madaafiic la dhacayeen si naxariis darro oo ay duqeynayeen xarumaha adeega bulshada isbitaalada goobaha biyaha iskuulada guryaha dadku seexdaan dad tiro badan oo shacab ah oo badan maato ayaa ku dhintay oo u dambeeyay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye abwaan jaamac kadii cilmi oo jimcihii 25 August jimcihii ka horeeyay madfac ay soo tuureen ugu geeriyooday magaalada Laascaanood marka dagaalkaasi waxaan arkaa ama anigu aan leeyahay waa dagaal ilaahay dadkii dulmaraa ugu hiiliyay kuwii dulmiga sameynayeen lagu jabiyay fool xumo badan bay la kulmeen dadkii dulmiga sameynayay Muuse Biixi indhihiisu cirka ayay arkeen tusaale wacan oo qof kasta oo raba inuu dulmi sameeyo
uu ku ogaan karo natiijada dulmiga uu samaynayo ayaa ilaahay halkaa inoogu soo bandhigay haddana ciidanku waxay joogaan gumaysiyo dhexdooda halkaas difaac ka xidheen halkaasaa lagu xakameeyey halkaas ayaa ay difaac ka galeen waan u hambaliyeynayaa maamulka cusub ee uu hogaaminayo saaxiibkay cabdiqaadir firdhiye oo run ahaantii ku guulaystay inay madaafiicda cadowga soo garaacaya madaafiicda ka durkiyaan magaalada maalin dhaweyd waan la hadlay SSTV 3 bilood baan u qabtay cabdiqaadir laakiin 3 week ayuu ku soo afjaray waa wax diiwaanka u galay saaxiibkay ugu hambaliyeynayaa waxaan leeyahay waxa guusha ku siiyay ilaahay guusha waxaad ku heshay dulmi la falay waxaad ka fogaataa in ciidankeenu dulmi ku tallaabsado iyo falal la mid ah kuwii axmaqnimada lahaa ee ay samaynayeen maleeshiyada kaamar qaadata musabiix waa tahay ilaahay umahad celiya guusha uu idin siiyey waxaad ku hesheen samir iyo dulmi laydinku samaynayay marka dulmigana iska ilaaliya difaacina adkaysta amniga magaalada laascaanoodna aad u adkee ciidanka iyo hubkana ka saar waa tahay Saleemaano dad badan oo Soomaaliyeed waxay qaadan laayeen in gooja cadde si fudud ay ku lumiyaan ciidankii Soomaaliland ee muddo ku sugnaa isla markaana ahayd difaacoodii ugu cuslaa ee ay ku lahaayeen dowladka magaalada laascaanood bal dadka sawir guud uga bixi sidee wuxuu isu bedelay nin siyaasi oo deegaanadaas ka soo jeeda ayaa tahay oo intii uu iyo marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray dagaaladan iyo waliba bilihii u dambeeyay hadda ay xaaladda laascaanood qasnayd aad ula socday baa ahayd waraysiyo kala duwan baad bixisay maxaa dhacay sidee wuxuu isu bedelay halkee ayuu wax maaragtay bal dadka sawir guud uga bixi sida fudud ee Somaliland looga qabsaday gooja cadde markaan ka bixiyo sawir yar oo kooban isla markaana aan ka tusaaleeyo dhanka Soomaalida waxa ka dhacday in ragu kibirka waa lagu ku faakaa la ogaado markaan ku sifeeyo garan maayo وعوي قومية كستا أو أمداد وعالم ككو أمنا ما هي أولى ذاي قفك الدرمي كبيرك يقدر هذا لدو أنت أمد كله ماشي أي كدم بيسو ماشي أي كدم بيسو أما النتيجة هذا وآخر كقاطو دكتاتور بدن يو كيفانية بدن ayaa caalamku dhan soo maray Soomaalina dhexdeeda soo maray waa taariikh qorantay oo ku qormi doonta bogaga kibirka iyo gardarrada iyo sida Ilaahay oo aqaabo gardarroolaha iyo kibroolaha marka uma baahnaan u maleynaya dhaqanka Soomaalida markaan xaqiisa eego قردرها لما قوليستو نين كبري إلهي وكو مدحا وقلفتا لكن كان الصومالي دي كوبادان تايبا كبرك إيا قردردو إناني ميل لقارين إلهي كبرك مجعلا قردردنا مجعلا ماشو حكا نحي سيديد بيلود يالا أبهينيي ciidanka maleeshiyaadka ay joogay waascaanood dusheeda ee madaxda la dhacay marka laga tago wixii ay hore u sameeyeen ka horinta ahayd in ay dilal qorshaysan dadka ku leeynayeen ee ahayd ummad Soomaaliyeed oo degan laascaanood oo leh oo Soomaaliya inay inta habeen qabteen iyagii carruurtoodii kala mastaafuriyeen oo ahayd in markii ummadani ay adkaysan weeyay dilalka qorshoosan mudaaradkay sameeyeen halkii looga garaabi lahaa dhashiika in carruur lala dhacay markii magaalada laga saaranay intay buuraha fuuleen oo godol ka qoteen ay madaafiic ku soo fariisiyeen ilaahay intaaba uu arkay marka arrin ilaah baa ka adeegtay gardarra ka adeegtay kibir baa ku kufay
marka si kalaan u qeexo garan maayo ilaahay baa dadka xaquudirirka ah dulmidiidka ah u hiiliyey ilaahay baa kuwii gardarrada iyo dulmiga wada garabkooda ka baxa waata Suleymaan waxaa jirtay dabcan dagaalkan in lagu qabqabtay maxaabiis aad u tiro badan oo kamid ah ciidankii Somaliland ilaa maanta wararka ka soo baxaya magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba SSC waxay sheegayaan inay jiraan ciidamo wali goosadaha oo ciidankii Somaliland ka firxaday oo la soo qabqabanayo arintaas maxaan xog ka haynaa ilaa iyo hadda أنا صار شيء كثير كعصو إلا يو أنتي دجال كل عاي أنتي كدم بيسي حبغا بدن باكل عاي أيضا كان أو إلى هي قرب كودي كبحي أيضا مو بدن أو لنصن أو شهادي كلنتي هي ضدك ديجا ماذا صدقني أورورنا يان وأنا قم هذا ضدك ديجا ماذا دقن SSC in aanay wax argoosi ah iyo wax dhibaato u geysan guud ahaan ciidamadii ay la kulmeen maanta u dambeysay baad arkayseen miidiyaha dad magaranaysa ambada oo la qabtay uu sheegayay inay muddo 2 casho ah ku jireen duurka waxaan ugu baaqayaa qof kasta oo la qabto in degdeg loo gaarsiiyo maamulka hoggaanka SSC in si wanaagsan loo sooriyeeyo haduu dhaawacan yahay in si wacan loo dhayo oo meesha uu dhow ee dhakhtar laga heli karo la geeyo kulliba maalmaha soo socdana waa la heli doonaa ciidan aad u badan oo kale ayaa ilaa hadda Somaliland ay sheegtay inay laadahay marka lama qiyaasi karo tirada rasmiga ahna waxay noo sheegi doontaa inoo sheegi doonaa hoggaanka dadkani doortay saaka hogaamiyuhu uu hadlay waxay noo sheegay 40 dhaawac iyo 250 nool oo la qabtay waxay ku soo siyaadana iyaga update gareyn doona ama insha Allah inoo sheegi doona laakiin guud ahaan shacabku deegaanka SSC wuxuu ka wacyi gashan yahay oo aan ku amaray guud ahaan dhamaantayo qof kasta oo askartii Somaliland ka tirsan oo ay qabtaan in loo dhaqmo si humanitarian si bini'aadanimo si tolnimo wadadkeeni meel kale tagi mayno waynu isnahay siyaasad bayna kala geysay isku mid baynu nahay hal la soo kaxeeyo hal keeno allo keeno maamulka haduu dhaawacayna hal daweey wata intaanan dhinaca Somaliland ugu dagalin iyo sida ay uga falceliyeen dagaalkii Gooja Cadde waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhinaca reer SSC hadda maadaama Gooja Cadde laga qabsay ciidankii Somaliland isla markaana ciidankii SSC ay ku sugan yihiin gumeys halkaas marka la joogo muxuu noqon karaa qorshaha xiga ee reer SSC qorshaha xiga anigu kulli markaan ka duulo aragtideeda waa in halka difaac laga xidho waa in difaacaasi uu noqdo mid ka duulaya in cadawgii iyo madaafiicdii 9 bilood garaacay ama 8 bilood garaacay Laascaanood inaanay fursad dambe helin inay ku dhawaato Laascaanood iyo meel kale oo bini'aadan ku nool yahay toona qodobka labaadna waxa weeye in amniga deegaamada imika gacanta ay hoggaanka SSC ku hayaan amniga la sugo oo ay ugu mudan tahay magaalada Laascaanood waa in ciidanka laga saaro hubkana laga saaro waa in hoggaanku ku diyaariyo xaalad degan oo wacan iyo gobol wanaagsan si ay awood u helaan dadkii 300 kun ahaa ee qaxay inay dib ugu soo noqdaan guryahoodii marka marxaladda kalena waxa weeye in hoggaanku uu ka shaqeeyo sidii amni iyo nabadgelyo ay ugu wada noolaan lahaayeen shacabka SSC iyo walaalada kale reer waqooyi ee ay xadka leeyihiin 1 kiiloomitir taana wayna aad uga shaqeeyaan oo colaadani aanay ku fidin deegaamada reer miyiga
وإن أي وقت بدن يجهد بدن جليان إن أمنه وسبناده مجالوين كواوينا قام بيرلو قبته عد كستا وشرعي كورت ما عندنا قام بيرلو قبته مدنانتا كوانا الله سيو inaan muuse mar dambe fursad u helin inuu dib ugu soo noqdo meel bini aadam ku nool yahay si aanu madaafiicdiin arxandarrada ahayd ugu garaacin. waa tahay dhinaca Somaliland dad badan baa hadlay oo odayaal dhaqameed ay ku jiraan dad shacab banaanbaxaya la arkayay oo madaxweynaha Somaliland ka codsanaya in ciidanka uu fasaxo sida iyagu hadalka ay dabcan u dhigeen madaxweynuhu iyo ragii mucaaradka ahaa Cirra iyo Faysal waa hadleen. Faysal waxa uu yiri tuutahan xiranaya waxaana moodaa in arintan ay midaysay mucaaradkii iyo muxaafidkiiba madaxweynaha Somaliland waa hanjabay. bal arintaas adigu aragtidaadu maxay tahay kaaga aadan ama sida aad u aragto hanjabaada Muuse Biixi iyo hadalada ka soo baxay Somaliland? waan arkayay waxaan u sheegayaa shacabka SSC iyo hoggaanka SSC waxa ay sayaan dagaalku muddada dhex taagnaa waa maamulka Muuse Biixi iyo kooxdiisu wada. Muuse Biixi iyo kooxdiisuna ama SSC ha noqdaan ama shacabka kale reer Somaliland ha noqdaan imka isku haray nin dan u haya maaha. waxaan u sheegayaa in aanu Muuse gelin colaad qabiil. arrintu qabiil maaha, qabiilna ma joogto. wixii ka dhacay lascanood mar hore iyo mar dambaba isaga ayaa ka mas'uula iyo jarankiisa ciidanka iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha. iyaga ayaa lagala xisaabtamayaa dhibaatada iyo burburka ku dhacay ummadda Soomaaliyeed ee mandaqadan degan. iyaga ayaa mas'uul ka ah. waxaan ka codsanayaa salaadiinta iyo siyaasiyiinta maanta u samaynaya cariish uu ku dhuunto Muuse kan la xiinaya dambiga uu galay ee ah burburka iyo dhimashada iyo khasaaraha inta leeg ee ummadii wada deganayd ku kala timid inay joojiyaan. Muuse iyo kooxdiisa waa in dusha laga saaro khasaaraha iyo burburka meesha ka dhacay. waa in maxkamad lagu geeyo, waa in lagula xisaabtamo. waan ka xumahay dad hadlay oo Faysal ka mid yahay inkastoo aan Faysal hadalkiisa wax badan ka soo qaadin oo Muuse maanta u hiilinaya. war Muuse yaa loo hiilin. Muuse khasaarahan isaga geystay, dhibkan isaga geystay. kuwa Hargeysa joogana naf ma hayo, kuwa Laascaanood joogana wuu tusay caalamka sida uu ka yeelayo. waa macangag axmaqa, waa gacan ku dhiig leh. waa in lala xisaabtamo oo shacabka imika isku haray marka laga reebo SSC wali uu u sheeganayo madaxtinimada isagoon mudnaynba inuu madaxweyne noqdo ama ahaado inay isu kaashadaan sidii ay isu dhaafin lahaayeen. waa nin waalan dhibkanna isagoo miir qaba ma geysan. waa nin tala qaadan. haddaad nin waalan soo raacdaan oo nin waalan muddaa la socoteen khasaare badanna wuu geystay idinkoo eegaya waray dib ha u soo raacina ninka waalan xidha. cid kale oo caqli qabta oo caqligeedu caadi yahay war horjooga ka dhigta inana aynu nabad iyo walaaltinimo ku wada noolaano. aad waa mahadsantahay.
وانت ما يستسمعها سيفي عنها وانسوق قبينيا واي سوق قبيه فرنت هذا قدام بيسا دردارك هذا قدام بيا سليمان دردارك هذا قدام بيا وحوي وردي Soomaaliyeed oo isku daata uma baanin khasaare intii dhacday baa inoogu filan xadkii aynu lahayn baanu maanta joognaa haddaad tihiin Somaliland ama si kale u dhigay reer Sheekh Saxaaqow maanta waxaan joognaa meeshii inoo dhaxaysay halkaa waxay loo sii dhaafaa waa ceeb baa looga dhacayaa dagaal sokeey oo aan dhammaan baa looga dhacayaa dhimasho badan baa looga dhacayaa anagu duulaanida kuma nihin deegaan aad leedihiin oo aan ku soconnaana ma jiro warhooy ninkaa waalan iyo duulaankiisa xafudayn inay qabta nabad sidii aynu ugu wada noolaan lahayna aynu ka tashanno hoggaanka SSC anoo u mahad celinaya ilaa hadda sida ay shaqada u wadaan waxaan ugu baaqayaa in difaacana ay adkeeyaan caasimadana ay ciidanka iyo hubka ka saaraan dowladda federaalka ee xasan sheekh in badan baan dhaliilay maanta waxaan leeyahay xasan sheekhow dhexdhexaadnimo dambe ma jirto qaado boos kugu habboon iskarab taag shacabkan midnimada ummadda Soomaaliyeed u dagaalantay ka shaqee sidii aad uga caawin lahayd dib u dhiska meelihii madaafiicda midnimada ka soo horjeeday ay dumisay ka shaqee sidii aad u soo celin lahayd ummaddii ay barakiciyeen madaafiicda iyo ciidanka midnimada Soomaaliyeed ka soo horjeeday tag laascaanood ka qayb qaado midnimada ummadda Soomaaliyeed dadkana waxay tiri kartaa tar maamulka Puntland aad baan ugu mahadnaqayaa sharafta iyo wanaagga iyo tolnimada ay muujiyeen shacabka iyo maamulkuba ka shaqeeyo hoggaanka SSC horumarka iyo amniga uga shaqeeyaan aad iyo aadna waa idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وهاجا ما سيهاي مدن سليمان عيسى أحمد حقلته وسيا أو كم من السياسيين تكسو جدا SSC ورئيس وان وهم هذا علنا تاني كلهم ذنبه نبت قليو